السلام عليكم daawade ku soo dhawow xalqadii lixaad ee barnaamijka fariimaha quraanka barnaamijkaas oo maalin kasta oo Ramadaan ah idinka yimaada barta YouTube-ka uu ku leeyahay kanaalka Qumane iyo sidoo kale ciwaanka Facebook ee Sakariya Cabdullah Haruun fariinteena maantu waxa weeye aayadda 17aad ee suuradda Al-An'am Rabbi waxa uu leeyahay وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير haddii uu Rabbi ku taabsiiyo dhibaato ma jiro cid ka faydaysa aan isaga ka ahayn haddii uu khayr ku taabsiiyana isaga ayaa wax walba kara waa fariin inooga timi xagga Rabbi fariintaas oo mucdeedu ay tahay in haddii ay dhibaato ina haleesho aynay jirin cid inaga faydi karta oo aan ka ahayn isla allihii inoo keenay dhibaatadaas haddii aynu aragnay dhib dhacday oo ay aadana gurmad ka sameeyeen iyada oo dhibtii laga doogsaday waa fayditaanka Allah waayo adoonkan gargaar ka fidiyay yaa ku ilhaamiyay shaqadan oo aan ka ahayn Allah sidoo kale haddii uu Allah siiyo adoonka khayr iyo wanaag nimco iyo baraare ma jiro cid awood u leh in ay ka xayuubiso oo aan ka ahayn allihii ugu deeqay taasi waxa ay inoogu baaqaysaa inooguna yeedhaysaa in aynaan cidna u caban ee aynu u cabanno baahideennana u sheeganno Allah subxaana daawade waa inoo barri iyo fariin kale oo ka mid ah fariimaha qotada dheer ee quraanka insha Allah assalaamu calaykum